wararka ugu dhow oo hadda aan helayno waxay yihiin in qadarkeeyo xarigiisa loogu geystay Ethiopia ay ku soo biyo shubanayso. وبتكلم يو سيكي وبتكلم now don't tell nobody. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي ملك استادون كجوتان وسيكي الله اسكو سو نقد وناكسن waxaan rabaa in aan ka hadlo arinta walaalkay qadarkeeyo oo ku xiran Ethiopia sida la sheegay run ahaantii xog dheeraad ah raadiyay dad fara badan oo halkaas aan ka aqaano oo aan asxaabnahay wala xiriiray qadarkeeyo sida la sheegayo halka uu ka digay waa Addis Ababa meesha ay dhibaatadu kala bilaabatayna waa airportka Addis Ababa sida la sheegayo oo wararka maaragtay aan ku helay inta badan 90% warka in uu yahay mid sax ah airportka Ethiopia ayaa qadarkeeyo lagu qabtay walibana maaragtay xarig loogu geystay warar kale oo soo baxay waxay sheegayaan xitaa in meesha uu ku xiran yahay hadda Addis Ababa gudaheeda aysan baahayn oo meel kale miyaa loo gudbiyay wax saasa inaan maqlay oo ay soo gaareen balse ma ahan 100% warkaas war cad laakiin way caddahay oo waa wax la hubo in qadarkeeyo Ethiopia airportkeeda Addis Ababa lagu xiray xarigaas qadarkeeyo lagu xiray wuxuu la halmaalaaba leeyahay arimo ku saabsan dokumentiyada uu watay waa sidaan aniga warka ku helay markii aan raadiyay maaragtay xog ku saabsan arinta oo dad Addis Ababa jooga aan la xiriiray wararka ugu macquulsan waxa ay leeyihiin kulay qadarkeeyo qof maaragtay siyaasi mu ahaan wuxuu ahaa qof maaragtay fanaan ah la wada yaqaano marka waxa la leeyahay wararka ugu dhow oo hadda aan helayno waxay yihiin in qadarkeeyo xarigiisa loogu geystay Ethiopia ay ku soo biyo shubanayso dhanka dokumentiga waxa la leeyahay wuxuu haystay passport Soomaali ah dhanka kalena wuxuu haystay passport kale marka waxa la leeyahay taa ayaa kaliftay in qadarkeeyo airportka Ethiopia maaragtay lagu qabto ee xarig loogu geysto haddaba waa wiil Soomaaliyeed walibana ah fanaan qadarkeeyo ana ahaanteedu wuxuu ii ahaa fanaan walibana ii ah saaxiib aad iyo aad ugu dhow aad iyo aad uga xumaay run ahaantii xarigiisa waan ka naxay aad iyo aad uga naxay run ahaantii waxaan Ilaahay uga baryayaa in sida ugu macquulka badan uguna dhaqsiyaha badan in Ilaahay gacanta uu ka soo saaro midda kale fanaaniinta Soomaaliyeed way ku mahadsan yihiin inta social media soo dhigtay qadarkeeyo free balse kaliya inaad social media soo dhigto aad ku soo qorto qadarkeeyo free ama ha ka ahaato shacbiyad ku raadi fanaan tahay fanaan kale inaad ka naxaysid dadka ku arkaan ama daacad ka ahaato in wiil fanaan walaalkaaya oo Soomaaliyeed oo fanaan kula ah inaad u damqanaysid ka ahaatee waxa ka tahay Ilaahay baa balse qadarkeeyo free waxa ma soo kordhinayso waxa loo baahan yahay qofkiiba codkiisa meel dheer gaaraya in si aan gabasho lahayn social media inta u soo fariisto dawladda Soomaaliya oo ka codsado qadarkeeyo dawlad kale uu gacan ugu jiraa in say noqotaba ay la xiriiraan mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliyeed in ay la xiriiraan dawladdan kale oo qadarkeeyo gacanta ugu jiro in laga xajoodo asbaabaha uu xiran yahay sida ugu macquulsan ee maaragtay wiilkeena lagu soo deyn karo dawladda Soomaaliya run ahaantii wax way qabatay dhalinyaro fara badan oo xabsiyo ku xirnaa qaar laga samray way soo daayeen labadii sano u dambeysay waan kaga mahad celinaynaa hadda midaan uga baahanahay waxay tahay dawladdu waxay dawlad u tahay dhalinyaradeeda dawladda sideedaba waa rabitaanka shacabka run ahaantii dawladda waxaan ka codsanaynaa wiilkeena Soomaaliyeed fanaankeenna qadarkeeyo in ay u istaagaan
ayna la xiriiraan mas-uuliyiinta dalkan kale ee wiilkeena gacanta ugu jiro sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquul galsan waayo dabcan cilaaqaad way leeyihiin waa qasab Addis Ababa iyo maaragtay iyo maaragtay Muqdisho way leeyihiin cilaaqaad way leeyihiin marka dawladda anaga waxaan ka codsanaynaa anoo ku hadlaya afka dhalinyarada Soomaaliyeed youtuberada Soomaaliyeed fanaaniinta Soomaaliyeed waxaan qof kasta oo caan ah oo magac leh codkiisana meel dheer gaaraya aan si xushmad leh uga codsanayaa qadarkeeyo waa wiil Soomaaliyeed waa wiilkeena midna ku darso fanaaniinta isku jiraan qadarkeeyo waa nin cid kasta ee u siman tahay hadda meesha uu joogay intuusan Ethiopia ka soo degin waad wada ogtihiin Somaliland buu joogay Booramo soo maray meelo fara badan ayuu joogay waa nin bulshada ay u wada sameeyeen yihiin waa nin yar haddana aan qalbigiisa maaragtay inaba ay ka masaxantahay wax la yiraahdo qabyaalada iyo maaragtay kuwana ku xigay ku akaw waa nin integration sameeya bulshada dhaqan ayuu wiilka yar yaqaanaa hadda saa ogtihiin safarkan Ethiopia intuu soo gelin meesha uu joogay oo waqti ku qaadanayay oo ku damaashaadayay waa wada ogtihiin Somaliland bay ahayd marka waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed siiba dawladda Soomaaliyeed fariinta waxaan ku socotaa dawladda Soomaaliyeed dawladdeena sharafta leh waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquul galsan in ay la sameeyaan wada hadal xiriir macnaha in ay la xiriiraan dawladdan kale ee qadarkeeyo uu gacanta ugu jiro dabcan way soo ogaan karaan meesha lagu xiro waa airport meesha lagu xiro waa caasimadii waa Addis Ababa waxay soo ogaan karaan sababuhu u xiran yahay iyo sida ugu macquulsan ee wiilkeena noogu soo deyn karaan marka waxaan ka codsanaynaa mas'uuliyiinta maaragtay safiirka halka u fadhiya dawladda Soomaaliya intaba arintan inaysan iska ila tirin ayaan ka soo qaadin just meeshaas uu ka digay waa la xiray waa la iska heesana loo biriyo xirnaana waa la iska soo deyn doonaa inaysan dhayalsanin waayo aniga sida maqlay arinta uu ku xiran yahay qadarkeeyo in dambi kalena ma gelinay jaasusna ma askarina ma ahane wuxuu ku xiran yahay aan maqlay oo si hoosaan u maqlaa waxay tahay arimo ku saabsan dokumentiga lagu safro baasaboorka loo yaqaano ayuu u xiran yahay baa la yiri qadarkeeyo say aniga igu soo gaartay marka dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa anagoo ah dhalinyarada Soomaaliyeed waliba si xushmad leh aan uga codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquul galsan in ay ula xiriiraan qadarkeeyo dawladda uu gacanta ugu jiro ayna kala hadlaan asbaabtu u xiran yahay sida ugu macquulsanna ay nagu soo daayaan wiilkeena taa waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya aan fariin ahaan ugu dirayaa anoo siikeeya qof kasta oo bulshada magac ku leh oo qadarkeeyo fanaan la ahaana waxaan leeyahay kaliya inaad sawirkiisa soo dhigto qadarkeeyo free ah ku soo qorto wax macno oo saasa ma soo kordhinayso waan qof kasta uu hadlaa Instagram live ka hadal video yar iska soo duub Snapchat-kaaga ka hadal meeshii baad is leedahay shacbiyada ku leedahay oo hadalkaaga meel dheer buu ku gaarayaa qadarkeeyo waa walaalka waa wiil Soomaaliyeed wax hadda uu kaaga baahan yahay oo aad qaban kartid waxay tahay in sidaan oo kale inta u soo fariisato hadiiba hadalkaaga meel dheer uu gaarayo ee dad fara badan kugu xiran yihiin in aad ka codsato dawladda Soomaaliyeed in arintan ay wax ka qabato wiilkeena Soomaaliyeed fanaankeena in loo soo daayo sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan oo aan ka codsanayno dawladdeena sharafta leh dawladda Soomaaliya aad iyo aad u mahadsantihiin ugu dambeyntii inta idinka tagin reer Malaysia showgeena waa habeen dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo haddii aad ku nooshahay Malaysia habeen dambe ayaa noo balan ah adresska Instagram-kayga ayaan soo dhigay YouTube-ka ayaan soo dhigay Snapchat-kayga soo dhigay see you tomorrow night Malaysia ardayda joogta iyo Soomaalida ku dhaqanba waa siikeeda la meel kasta adduunka joogta waxa inoo balana anoo caafimaad qabay adoo ila mid ah What we tell them? Yo, CK!
Don't tell nobody.